الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة باللسان يفقهوا قولي magacaygu waa Cabdisaaq Faarax Dhagaweel waxaan ka sharaxanahay gobolka Sool waxaan u sharaxanahay golaha wakiilada astaantaydu waxa weeyaan cadceed aqoontayda dugsigeygii hoose iyo malcaamaddeedii ugu horeysay waxaan ka bilaabay magaalada Xalin oo ah magaalo beeraley iyo durdurka caan ku ah ka tirsan degmada Taleex ee taariikhiga ee gobolka Sool waxbarashadeedii hoose dhexe iyo sare waxaan ku soo qaatay magaalooyinka Garowe, Boosaaso iyo Laascaanood waa aragnimadeeda shaqadeedii u horeysay xafiis dawladeeda waxaan ka bilaabay magaalada Berbera oo kaalada biyaha ee Berbera halkaas oo aan muddo ka shaqeynayay markii dambena aan uga sii gudbay shaqo business gaar oo breefada waxaan asaasay 2011kii company-ga kabaha iyo maryaha ee Quruxkaab oo runtii hadda deegaano badan ka shaqeeya oo aan anigu manager guud ka ahay sidoo kale waxaan 2017kii ka mid noqday tartamayaal 28 ahaa oo u tartamayay wasaarad cusub oo waqtiga la dhisay wasaaradii dalxiiska iyo dhaqanka 28 boos oo ay runtii u tartameen tiraan ku qiyaasay inay 300 iyo dheeraad ahayd waxaan ka mid noqday guulaystayaasha 28 kaas ahaa ee imtixaanka ku soo baxay waxaan ka shaqeeyay muddo dheer oo 5 sano gaaraysa wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska wasaaradii la oran jiray markii dambe lagu daray wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska taasoo aan ka soo waxyaheeda kala duwan ka soo qabtay xilal kala duwan iyo shaqooyin kala duwan ugu dambeynna aan bishii labaad uga tagay si aan isu sharaxo xilka golaha wakiilada waayo aragnimadeeda shaqo runtii waxa ay dheer intaas waxaan muddo hadda ku dhow 10 sano ka shaqeynayay arrimaha deegaanka oo si foolfiro runtii uga shaqeynayay waxaan ka mid ahaa guddiga nabadeynta degmada Taleex oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala runtii arintaas furan nooga dhigaydo guddiyo badan oo hore oo naga badan ay galeen laakiin anaga Ilaahay furaha noo soo dhiibay waxaan ka mid ahay runtii ururo dhalinyaro iyo ururo horumarineed oo deegaanka ka jira waxaan xubin ka ahay ururka dhalinyarada hawlwadaag oo gacanta ku haya hadda magaalada Taleex ee taariikhiga ah nadaafadeeda maadaama aan dawlad hoose ka jirin sidoo kale waxaan xubin ka ahay guddiyo kala duwan oo malcaamado iyo iskuulo iyo macaahid guud ahaan gobolka Sool ka jira guddiyada gacanta ku haya boqolaal arday baa dhigta macaahidda iskuulada iyo malcaamadahaba waxaan rajaynayaa insha Allah shaqada hadii Ilaahay xilkaygu guuleeyana si laban laabno ujeedadayda murashaxnimo maadaama aan si mutadawacnimo dadkayga ugu shaqeeyay maadaama aan arki karayo garan karayo baahiyaha iyo sababaha iyo asbaabaha wax loo qaban karayo maadaama aan runtii qof aamina oo akhlaaqiyan iyo qiimahan iyo dad ahaan dadkiisa iyo deegaankiisa sharaf ka dhexle ahay maadaama deegaankaygu runtii mudooyinkii ugu dambeeyay aanu matalaad dhaba oo baahiyooda ka turjumaysa aanu helin maadaama siyaasiyiintii iga horeysay saldhigoodu uu Hargeysa ahaa oo marka la soo wakiisho ama la soo dirsado aanay dib deegaanka ku noqoshadoodu ay ahayd mar dhibaato jirta ama mushkilad jirto anigu waxaan rabaa oo musharaxnimadeeda lambar 1 ah inaan dhulka iyo deegaanka codkaygu ugu badan yahay ka yimaada inaan xafiisyo ka furto xafiisyadaas ay noqdaan kuwo ka shaqeynaya rabitaanka iyo baahida deegaanka iyo dadka sidoo kale murashaxnimadaydu waxay u kalifi waxa weeyaan waxaan dareemayaa oo aan kala mid ahay bulshada deegaanka gobolka Sool tabashada guud dalka Somaliland ay ka tabanayaan saamiga siyaasiga ah saamiga guud ahaan arrimaha bulshada iyo guud ahaan matalaada waxaan rajaynayaa hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala xilka ay ugu guuleeyo inaan matalaad dhab deegaankayga matalo ugu dambeyn waxaan u soo jeedinayaa guud ahaan reer Sool gaar ahaan dhalinyarada iyo dumarka inay codka isiiyaan magacaygu aan ku celiyay waa Cabdisaaq Faarax Aadan Dhagaweel astaanteenu waa cadceed hadii aad codka isiisaan oo ii ogolaataan inaad ii codaysaan aniguna waxaan ahaan doonaa sidaan haddaba u ahay qof ka shaqeynaya dantiina iyo waxbarashadiina iyo horumarkiina mid intaas ku foogan ee aan
wax kale ka shaqeyn ma ahaan doono qof soo shaqo tagay oo idinka shaqeysta laakiin waxaan ahaan doonaa mid idinka idin shaqeeya oo dantiina ka shaqeeya oo rabitaankiina iyo codkiina ku hadla waxaan idinka codsanayaa mar kale inaad codka isiisaan astaanteenuna waa cadeed wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh